kulanti wacan daawadayaal muuqaalkan waxaan idin kula wadaagi doonaa mar kale oo musaafir lagu dilay wadooyinka mara gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne oo amnigeedu aad uga sii darayo iyo dadka shacabka ah oo cabanaya soo dhawaada waa mahadsantiin mar kale maanta ayaa lagu dilay nin musaafir ah deegaan u dhaxeeya degmooyinka Beergadiid iyo Matabaan oo lagu magacaabo Bacda wada kamid ah wadayaasha gaadiidka xamuulka ah ee isaga kala goosha gobolada Bari iyo gobolka Hiiraan ee dalka ninkan ayaa waxa loo dilay si arxan darro oo bereer ah iyadoo ragga dilayna la sheegay inay ahaayeen tuugo wadada u galay oo doonayay in ay lacag baad ah ka qaadaan shalay ay ahayd markii nin musaafir ah lagu dilay deegaan hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kaas oo asna ahaa wada gaadiidka dadweynaha ee isaga kala goosha gobolada Bari ee dalka iyo magaalada Muqdisho dilalka noocan oo kala ah isla markaana la xiriiro faralka burcadnimada ah ayaa ku soo badanaya gobolka Hiiraan sidoo kale magaalada Beledweyne ayaa amnigeedu faraha ka sii baxay iyadoo dadweynuhu aysan si xor ah habeenkii u socon karin wadooyinka magaalada Beledweyne waxa ku sugan ciidamo kala duwan oo huwan ah kuwaasi oo isku hoos gabada waxaana soo batay dhaca telefoonada iyo agabka kale ee dadweynuhu ay haystaan magaalada waxa ku sugan dhowr maamul oo sheeganaya in ay magaalada maamulaan mana jiro wax maamul ah oo isku dayay in uu wax ka qabto amni darrada magaalada Beledweyne booliiska Beledweyne ayaan iyaguna ka soo bixin saldhigga ay ka digan yihiin Beledweyne taa bedelkeeda waxa soo batay jidgooyooyinka iyo isbaarooyinka yaala duleedka magaalada Beledweyne kuwaasi oo doonaya dhamaantood in ay lacag baad ah ka qaataan gawaarida xamuulka ah ee u raran magaalada amaba ka sii gudbaya tiyo ay jirto in aysan jirin cid lacagtaasi baadda ah ee ay ka qaadaan gaadiidka uga hortagta ama amnigooda ku sugta shacabka Beledweyne ayay fariintoodu maalmahan istaba joog u ahayd iyagoo cabashadooda u gudbinayay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya si ay wax uga qabato xaaladda ka taagan gobolka Hiiraan